Sida saaxiibayaal, maanta waxaa idiin wadaa qaybtii labaad ee season-kii noo socday. Waxaan rajeynayaa inaad kulligiin caafimaad qabtiin. Inta aanan bilaabin waxaa kaa codsanayaa inaad channelkan subscribe ay saartid, videogani like ay saartid. Bilowga filimkan wuxuu ku bilaabanayaa June markuu qolka kusoo laabto. Nin oo la xirna ayaa si ceeb ula hadlaayo, wuxuuna kusoo tuurayaa waraaqad. Maalin kalena wuxuu arkayaa maxaabiista oo garaacaya maxbuus cusub. June wuxuu dareemayaa inuu la mid yahay asaga. Magaciisuna waa Sin. Sin wuxuu leeyahay waxaan raadinayaa lacag. Gabadhaasna ma aanan aqoonin. Wax kastoo caddeyn ahna waa la iga sameeyey. Qareenkii ii yimidna inuu iga caawiyo. Asiga ayaa igu sii dhex tuura xabsiga. Kadib wuxuu tusinayaa kaarka. Asigana wuxuu ogaanayaa wixii asiga ku dhacay inuu asigana ku dhacay. Kadibna wuxuu dhahayaa hooyaday way isdishay. Maalin kadib markuu u tagay qareenkayga, Sin wuxuu leeyahay hooyaday weligeed isma dili lahayn waa la dilay. Kadib waxaan arkaynaa meel lagu iibinayo farshaxanada iyo dahabka. Nambarkeedina waxaa waaye 73. Qof walbana wuxuu rabaa inuu helo. Laakiin meesha waxaa joogo nin lagu magacaabo Johan. Ninkaana ma ahan qof caadi ah. Waa nin maskaxda dadka ku ciyaaro oo wuxuu rabo ka samaysto. Kadib waxaan arkaynaa inuu joogo nin lagu magacaabo Yonshik, kaasoo isku dayayo inuu helo shaygaas. Qiimihiisana kor ayuu ka caayay. Wuxuuna gaarayaa ilaa 3 bilyan oo lacag Kuuriyaanka. Kadib waxaa soo wacaya Johan oo ah ninka dhab ahaantii ka dambeeya wax kasta. Johan wuxuu leeyahay haddii aad rabto in nolosha wiilkaaga badbaado waa inaad iibsataa shaygaas. Yonshikna waa argagaxayaa, laakiin si uu badbaadiyo wiilkiisa wuxuu kordhinayaa lacagta ilaa ay ka gaarto 6 bilyan. Ugu dambeyntiina wuu iibsanayaa shaygana. Guriga Johan ayaa loogu sii horumarsiinayaa. Johan markuu guriga imaado ayuu wacayaa, wuxuuna ku dhahayaa waxaan kaa hilmaamay inaan kuu sheego ninka xabsiga u galay magaca wiilkaaga wuu dhintay. Waraaqada ayuu laqay si uu u muujiyo inuu yahay qof kale. Hadda kiiskaas wiilkaaga waa la xiray, wax dhibaatana ma jirto. Sidaas darteedna haddaa rabto fasax u bax. Kadibna Sonos ayuu dhahayaa. Maalintii xigtay shirkadda Johan waxaa ka socday kulan ku saabsan qiimaha dhulka. Intii lagu jiray kulankaas, Johan waxaa soo wacayo ninka hore ugu lahaa xiriirka, wuxuuna dhahayaa waa inaan nadiifinaa. Johan wuxuu ugu jawaabayaa haddii la nadiifinayo waa la nadiifinaynaa. Dhanka xabsiga, June wuxuu ku xoog badan yahay dadka xabsiga ku jiraan dhammaantooda, wuxuuna garaacayaa raggayo. wuxuuna ku leeyahay ha igu ciyaarin, waad iga shallaan doontaaye. Gabar ayaa u tagayso oo ah ninka dayactirka qalabka korontada, waxayna ka qaadanaysaa lacag kasta oo meesha u taalay. Kadib wadaadka Jinwoo ayaa u imaanayo si uu ugu sheego xaaladda June. Wiilasha xabsiga waxay sheegayaan in Yo ka cabsanayo June. Markaas Yo wuu xanaaqayaa, wuxuuna garaacayaa ninkii sheegay warkaas. Waqtigaasna xabsiga waxaa soo galaya maxbuus cusub oo la yiraahdo Do. Asigii kooxdiisana waxay saaxiib leeyihiin Yo. Taliyaha xabsiga wuxuu Yo ku leeyahay waxaan ogahay wax June idinka sameeyey adiga, laakiin ha mashquulin xabsiga. Waxaan rabaa xasilooni. Waxaa hore u dhintay mid aad dhib ku keenay xabsiga. Waxaan rabaa xaalad degan. Dhanka kalena wuxuu booqanayaa June, wuxuuna ku leeyahay wadaadku wuu kaa welwelsan yahay, wuxuuna ka baqayaa inaa isdisho. June wuxuu ugu jawaabayaa ha iga welwelina, waan ka soo bixi doonaa halkan, anigana dembi ma gelin ayuu dhahayaa. Yo wuxuu amar siinayaa nin la yiraahdo Yong, laakiin June wuxuu bilaabayaa inuu qorsheeyo sidoo xabsiga uu bixi lahaa. wuxuuna sawiranayaa maabka dhammaan albaabada laga baxo, jadwalka ilaalinta iyo daqiiqadaha ay waardiyaasha isbedelaan. wuxuuna go'aansanayaa waqtiga ugu fiican oo baxsan lahaa, waana 10 saac oo habeenimo. Yongi wuxuu u soo galayaa qolkiisa si uu u dilo, laakiin June wuu soo jeedaa, wuxuuna soo koristaagayaa korkiisa. Laakiin hal mar ayuu soo boodayaa June, wuxuuna garaacayaa ilaa uu ka jijiyo wejigiisa. Subaxdii Yo wuxuu arkayaa Yong wejigiisa oo burbursan. June wuxuu isleeyahay halka caqabad ee ku haysato waa Yo. June wuxuu soo abaabulinayaa inuu ku qasbo Yo inuu garaaco si Yo loogu xiro qol gooni ah. Kadib June wuxuu helayaa shay lagu beero dhirta, laakiin wuxuu ka sameynayaa furayaasha xabsiga, wuxuuna ku qarinayaa furo been ah. Kadib wuxuu ka sameynayaa furo bir ah. Markaas kadib waxaa imaanaya dhakhtarka talaalka ee xabsiga. Dhakhtarkana waa la soo dirsaday, waxaana loo soo diray inuu dilo June. Johan ayaana soo dirsaday. June wuxuu qaadanayaa talaalka, laakiin wuxuu sidoo kale qaadanayaa cirbad kale oo ka hortagaysa sunta. Markaas wuxuu bilaabayaa inuu xabsiga ka baxsado. Cilad ayuu ku sameynayaa korontada si kaamiradaha u damaan, wuxuuna gelayaa qolka kaararka, wuxuuna soo qaadanayaa kaarka albaabka lagu furo. Kadib wuxuu iska bedelayaa dharka si uu u ekaado shaqaalaha xabsiga, wuxuuna usoo dhaqaaqayaa dhanka albaabka weyn. Laakiin markuu ku baxayo wuu suuxayaa sababtoo ah talaalkii la talaalay ayaa qabanayo. Dhanka kale Johan wuxuu joogaa meel tartan oo si abaabulay, wuxuuna madaxa kooxda ku leeyahay yeesan dhicin shil, haddii uu qof dhinto waa dhibaato. Laakiin wuxuu bilaabayaa inuu ciyaarta joojiyo isagoo u qoslayo. Markaas Johan wuxuu booqanayaa maamulka xabsiga, wuxuuna taliyaha siinayaa dahab badan, wuxuuna ku leeyahay haddii aad dhegaysato waxaan ku sii doonaa 5 kale. Taliyahana wuu ogolaanayaa. Kadib waxay isla qaadanayaan qorshe kaasoo ah maxaabiista khatarta badan in loo diro shaqo banaanka ah. June wuxuu kusoo toosayaa isbitaalka. Wadaadka
ninkan wuxuu u sheegayaa inuu waqtiga saxda ah helay daawooyinka, laakiin Yo wuxuu u imaanayaa si uu u dilo June. waxayna u dagaalamayaan si arxandara ah. ugu dambeyntiina June wuxuu jarayaa dhigta Yo laakiin ma dilaayo. kadib askarta ay imaanayso dhammaantoodna waa la xirayaa, waxaana laga buuxinayaa gaari weyn si banaanka loo geeyo. gaarigaasna waxaa sugaayo ciidanka amniga gaarka ah ee Yohan la shaqeeyo. Yohanna wuxuu gacanta ku hayaa dhammaan feelasha maxaabiista oo ka mid yahay June. asigana wuu u khudbeynayaa marka hore isigoo dhoola cadeynayo. qaybteen labaadna halkaas ayay noo joogaysaa. fadlan waxaa kaa codsanayaa YouTube-keena inaad subscribe saartid, videogaana like aad saartid, comment qurux badanna aanu soo qortid saa qaybta saddexaad usoo dhigo.